السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا يوتيوب channel keena Kunxilo Official. Maanta haddii aan barnaamijkeena hore ugu galno Enzo Felix oo banaanka keenay qorshaha iyo yoolka Barcelona ee xilli ciyaareedka dambe ee kadib guushii ay ka gaareen naadiga Real Madrid xaaladdu. Rafinha oo jabiyay rikoor weyn oo uu ku faani jiray Cristiano Ronaldo kadib El Clasico-dii xalay ee ku guuleystay naadiga kubadda cagta ee Barcelona. Gary Neville oo xaqiijiyay kooxda ku guuleysan karta horyaalka Premier League kadib Arsenal ay ka gaartay guushii ay ka gaartay West Ham United. Arsenal oo wajahaysa dhibaato cusub kadib guuldaradii ee West Ham ay u geysatay shalay. Arsenal oo wajahaysa dhibaato cusub kadib guushii ay ka gaartay West Ham United. Mikel Arteta oo magacaabay laba xidig oo kooxda u suurtagelisay in ay garaacdo naadiga West Ham United. Wayne Rooney oo digniin culus u diray naadiga Manchester United. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijka ku eegi doonaa. Tababaraha Barcelona Enzo Felix ayaa ka hadlay guushii ay kooxdiisa ka gaartay Real Madrid. Wuxuu leeyahay dhaawacyo badan sanadkan na hareereeyay balse waan ka gudubnay oo waxba nama celinin. Guushii aan rabnay oo ahayd in La Liga ku guuleysano waa ku guuleysanay. Felix ayaa si gaar ah u ammaanay dhowr ciyaaryahan oo waaweyn sida Paul Cubarsí, Gerard Martin iyo Eric Garcia. Dhammaantood waxay ahaayeen kuwa cajiib ah ayuu leeyahay. Macalinka Jarmalka ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay tayada kaydka oo joogtada kooxda u ah. Waxaan awoodnay in aan adeegsano ciyaartooyo kaydka ah sababtoo ah ciyaartooyo kayd badan ayaa diyaar ahaa. Waxaan laga yaabaa in wax walba ay u dhaceen dhowr toddobaad ayuu leeyahay, laakiin waan ku faraxsanahay. Markii la weydiiyay qorshaha, Enzo Felix ayaa si cad u muujiyay in himiladiisa ay Barcelona. Hadda waxaan rabnaa in aan gaarno 100 dhibcood sanadka dambena. Hadda waxaan rabnaa warkiisu waa cad yahay. Wuxuu leeyahay hadda waxaan rabnaa in aan 100 dhibcood Real ku qaadnaa rabnaa sanadka dambena. Maxaa rabtaa sanadka dambe? Wuxuu leeyahay UEFA Champions League ayaa rabnaa. Warkaas ma qarni. Wuxuu leeyahay si cad sanadka dambe halis diyaariyo leeyahay naadiyaasha kale oo sheega sida Real Madrid. Felix ayaa sidoo kale ka hadlay sida uu u faraxsan yahay nolosha kooxda oo wuxuu leeyahay maalintii ugu horeysay Barcelona Deco igu soo dhaweeyay kooxda ayuu leeyahay. Sidoo kalena mar walba waxaan ku fikiraa si wanaagsan marka aad tababare u tahay koox weyn, markaas waxaa u fikiraa kulaha si wanaagsan. Dhanka kale, Rafinha oo jabiyay rikoor oo Cristiano Ronaldo u yaalay. Rikoorkaas wuxuu ahaa Cristiano Ronaldo El Clasico 30 kulan ay ku qaadatay inuu 8 kulan oo badiyo El Clasico, balse Rafinha waxay ku qaadatay 13 kulan oo kaliya ayay waxay ku qaadatay in uu rikoorkaas ka tallaabsado. oo wuxuu xalay gaaray 9 guul ayuu gaaray oo El Clasico. Marka Ronaldo rikoorkaas waa laga jabiyay xalay. Marka Barcelona Real kaliya lama garaacin xalay, Ronaldo hataa waa la garaacay. Ma fahantay? Dhanka kale, Gary Neville wuxuu leeyahay ciyaartii shalay ay aragnay Arsenal inay 1 gool iyo waxba ay ka gaartay naadiga West Ham United. Taasi waxay cadeynaysaa ayuu leeyahay in Arsenal isla waqti xaadirkanba aan siino horyaalka maadaama ay u rafaaday oo dhibtootay. Wuxuu leeyahay Arsenal muddo 80 daqiiqo maadaama ay ku dhibaatootay kadibna oo Lisandro Trossard oo goolkaas u dhaliyay Arsenal halasi ayuu leeyahay. Arsenal oo wajahaysa dhibaato cusub kadib guushii West Ham United ay ka gaartay. Waxaa la leeyahay
Ben White qaybtii hore ciyaarta ka dhaawacmay Arsenal xalay kadib ciyaarta Mosquera lagu bedelay ninkaas Ben White kadib haddana waxaa maaragtay ka dhaawacmay qaybtii labaad ee la keeni waayey maaragtay Riyanka Italy daafaca Italy Ricardo Calafiori asana ninkaasna dhaawaca lagu tilmaama wuxuu leeyahay ma xaqiijin karo waqti xaadirkan soo arki doonaa ayuu leeyahay tababare Arteta Mikel Arteta Wayne Rooney oo ugu digay naadiga Manchester United Wayne Rooney wuxuu leeyahay naadigan waa inay maaragtay tababaraha la wareegaan waa inay maaragtay tababaraha hadda ku dhawaaqaan haddii kale waa loo yaabaa leeyahay Wayne Rooney oo ugu digaya macnaha Manchester United wuxuu leeyahay haddii aad rabtiin oo sanadka dambe tartan aad rabtiin inaa maaragtay kooxaha waaweyn aad la gashiin waa inaa waqti xaadirkan aad ku dhawaaqdiin Michael Carrick ha noqdo ama maaragtay Michael Carrick wuxuu leeyahay ninka Michael Carrick midkiisa ma ka dhigtiin ilaan maaragtay wuxuu sameeyey 10 kulan ayuu badiyey 14 ciyaarood oo lasoo dhaafay kaliya afar ciyaarood bis ninkan 14 kulan 10 kulanaa badiyey waaweynka waa marka wuxuu leeyahay Michael Carrick ku dhawaaqa ama maaragtay tababaro kale ku dhawaaqa waa inaa maaragtay tababaro kale keentaan oo leeyahay ninka maaragtay Wayne Rooney digniin culus oo u jeediyey tababaraha Real Madrid Arbelo wuxuu leeyahay ciyaartii xalay ka dhacday wuxuu leeyahay maaragtay waxaa la iga diiday rigooro cad Eric Garcia oo xusul la dhacay maaragtay Jude Bellingham wuxuu leeyahay rigooradaas si cad la iga diiday sababta la iga diidana ilaa hadda ma ogahay ayuu leeyahay maaragtay Arbelo oo ka careysan yahay halkaas ayaan kusoo gabagabeynayna aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi